بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada my raja channel to asxaabta dhammaan meel walbaad adduunka joogtiino waxaa idin rajeynaa caafimaad iyo farxad inaad ku nooshihiin insha Allah maanta maxay ahayd jadwalkeena maalinlaha ahaa ayaa wax yar ka soo qaadanay insha Allah wadaama aad in badan iga codstaadi ka soo dahay iga raali ahaada tan casho aan sameeyay ahayd bilowga idin tusay sababtoo musqusha aan bisin ku dhex sheegaya diidaya saas darteed insha Allah haday noo bilaawnaysaa hooshayna maanta way nooga bilaawnaysaa musqusha waa maalinta axada musqusha dirbiga aad ayay ugu dhigtaa wasaqda sababtoo ah ma dareemi kartid adiga laakiin markaad aad wasaq u noqoto maxaa ka gaariyay maya marka isku day in maalin walba axad aad musqusha dirbiga dhaqtid aad dirbigiisa dhaqatid si ay kugu noqoto hadda musqushaas dirbigeeda muddo adiga 2 sano ku dhawaad waaye intay dhisan tahay sideeda nadiif u tahay maanta la dhisaa muddo marka meeshaan waxa ku soo shubanaynaa baking soda aad ay clean ugu dhigtaa waxyaabaha ay u nadiifisaa iyo maxay shaambadan loogu talagalay dirbiyada dhulka meel walba lagu dhaqi karaa meel ay diidayso malaha adile wadwado meel ay diidayso malahan meel walba hadeertan ka soo rugaa qasaalada sidoo kale aydan tirtirida u baahan tahay meel walbo geesaha meel sheerabta ha ahaato tanna waa aashita yar gacnaha ayaa lagu tirtirtaa marka musqusha laga soo baxaayo hadiina aad gacanta marsiinin wasaqda way kugu sii badanee waxyaabaha dhegdhega iyo wasaqda inay badad keenayo waxyaabase ka mid tahay ayada meeshaas ayayba taagan tahay soo maaha ayadana gacanta horaa la iskaga marsiiyaa marka insha allahu tacaala musqushii tan ma ahan musqushii fadhiga waa musqushii qubayska iyo weysada qubays iyo weyso kaliya loo galaa marka musqulaha qaar daaqadaha sidoo kale daaqadaha way madoowaadaan xiliga aan ku jirno idin la qaybsana waa xili winter amba xili qaboob saaid oo jiro daaqada way dhididay ani gurigeyga aad u dhididaa ininka arki doontiina marka daaqadan way madoowaanay meelahaas meelihii leh habada ay ka soo bixaysa waa habada ay ka qaadanaysay aydan waa gacantina la marsiyaa hadda marsiina shimee marsiina biri damsa u dhahay bismillaah guriga ka carara leeyahay marka shabaqisa marka ayaa wili ku xiran waa aragtiin banaanka waa mugdi reerka oo dhan way jiifaan waxaa waa musqusho nadiif inay soo kacaano cadays ay u soo kacaano naftooda raaxa ay dareemaano sababtoo adiga hooyo ee adiga waajib ku saarayaan waa inaa nadiifisa soo maahan marka saasa meel walba u soo tiradirishida qaybta banaanka xigta waaye mar walba bacaa noogu dhagan bacda waay waxaas leerta soo galay marka saasa u leerinaa kadibna saasa u tirtiraa waa meelaha ugu muhiimsan oo aad iyo aad guryaha nooga madoowaadaano waan aad iyo aad ugu taxadiraa aad iyo aad ugu ilaaliyaa dirbigana saasa gacanta hore ugu soo marsiistaa sababtoo dirbiga hadaan la dhaqin asaga xataa dirbiga noloshu ka mid yahay hadaan dhaqin uu madoowaana wasaq u dhagdhago yeelanaa meel walba saas gacanta soo marsiyaa maalinta axada subaxnimo alasay hoolaha yar qabtay ka mid tahay marka hool iyo aanan dirbigaas ku qaxaa dhaca ka soo siyaa waa ka soo saaraa markaas dirbiga uu soo wadeynaa meel walbo asas gacanta soo marineena meel walbo dirbigo dhan nadiif waayo dirbigaas wasaqda adig korkaaga ka quweysataa ku dhageyso wasaqdaas haday ku dhagtana bis way ku dhamaatay sababtoo wasaqda haday ku dhagto wasaqda adig ka fuqda ku dhageyso wasaqda adiga iska quweys inay ku dhageyso yaa diidaay waay marka meeshaan shukumaanada ku saarana musqusheeda ma aha tambarkada waa musqul caadi normaal istaaga laga quweystaa istaaga waxa la xasuus.com ay ku reebanay marka qaar musqushaan ma aha alaabta raaxada oo barkad iyo waxaas nasiib uma yeelan marka maanta waxa idin tusinaa musqusha naftirkeeda waxay u baahan tahay in loo cadeeyo waayo meelahaas madmadow ayaa galo burush guriga laga nacay soo qaada amba jadiid asagoo yani iskaga dhex darin alaabta lagu cadeystaan ka wadaa waa aragtiin meelahaas oo dhan ka fufuji waayo gudaha madow ayaa u gala ma ogidiin ninka qofkii ognaa waaba kaas qofkan ogeena ha ogaado sababtoo xilliga meelaha biyaha u badan yahay dhan madow ayaa koro saas u caday
rug sidaas oo cadeey meelahan oo dhan musqusha lagu weys qaato madow ayaa koro ru'aanta aniga sidaan ayaa yeelaa madow dhan igama yeeshto walaaleyga jeclahay sidaan yeel ka faa'iideyso meelahaas dhan madowga ma ka koraayo ma ku dhalana yani wuu ku dhalana waa qasab laakiin gacanta ku hay bakin sooda soo qaado oo cadeey rug baashaas ku rug sababta wax kale kuma rugmaayo haddee saaid kaaga madoobaatan waxaa ku rugi kartaa siliga alaabta lagu meero ilaan sheekada xoogay gaarta soomaa basar way dhaaftay basar way dhaaftay marka saas miraayadii waxa dhan sidaas ugu soo rugaa bakisoodadii wili shaqadeeda noo socoto dirbigii oo dhan saas oo dhalo kuugu noqona meel kasta mideeda meelahaas way madoobataa waa isla wada ognahay haddaa mutulayn leedahay saas ugu cadeey burush soo qaad burushkaas ku rug maanta burushkaas faa'iidiisa ayaa idiin wadaa tubada meel kastay madow ka noqotaa siiba tubada meel saxanka saasoo kale asagana habeenkii meeshaas majeedaa way gashaa madowga haddaad arkaysi madow kasoo daadanayo mujeedin madow kasoo daadanayo mujeedi waxaas ka baran subxaanallah bacteria kugu dhalinayaan hadda waa 1 week keliya intaasoo sano ka baran haddee tahay meeshaas subxaanallah waxawaaye waxa gacanta daan lagu hen dhibaatay leedahay xanuunay leedahay waxyaabaha laga qaadaa marka meelahaas camar saas adayga u qaaday geli meel walba geli waxaa ka buuxi ma ogid adiga laakiin waad ogaani maalina ogaani insha allah sidaasaa meel walba loo soo rugay kadib dirbiga hal qeyb oo keliya ii haray halka qeyb insha allah waa idiin tusinaa qeybtan soo jeedka ayaa noo haray qeybtan wax qubeys laguma qubeysto waayo waa la agmaraa le qeybta la agmaraya waayo waa ujeediin sida dirbiga cuseeb dhalla oo u yahay gacantan ku haya waan rugaa sababtoo adiga nadiifku kugu badanaa adigana waxay kuu tahay aalmiinta yar dhidid yar ayaa kaa imaanaya adigana gurigaada nadiif macaan ayuu kuu noqonayaa marka insha allahu tacaala ka faa'iideyso waxaan walaalahayga dirbigana maalin gaar ah la dhaqdo sababtoo aan maalin gaar ayaa dhaqdaa qof waxaa laga yaabaa ininkan sidoo kale maalin gaar inaa dhaqatiino ka faa'iideyso wacan marka sidaas ayaa biyo loogu soo raacsiinaa dirbiga dhan dhalo nadiif qurux ku noqonaa marka asagana dirbiga sidoo kale meesha lagu qubeysto duushka hoostiisa waataas haddaa barkada lagu qubeysto aad leedahay sidoo kale burushkaa soo qaado rug barkadaha aad ayay hoostooda u madoowaadaan iskaga dadaala sababtoo ani barkad maba kusoo deginba guriga soo iibsaa laygu dhahay insha allah maxawaaye in yar la joogaa meeshaan lama gaarin reerkaas markii la gaaray insha allah alaana gaarsiiyo laakiin qofkay barkad ugu taal sidaan ha usoo qaata ha ugu rugo sababtoo barkadaha aad ayay u cagaartaan wasaq ayay noqdaan daawooyin qaasaa jiro haddaa barkad leedahay rug barkadaada nadiifi waa meeshaad ku qubeysan lahayd wasaqdaada jirkaaga oo dhanaa ku reebatay maxaa u nadiifin weys wasaqdaa ku reebataa ku dhega maaho marka sidaasay tiyaa dhulkii oo dhan usoo waxayna hal mara wixii oo dhan soo wada raacsiiyey inta dhimana hadda la raacsiinaa sidaasaa musqushi ku dhamaaneysaa marka wax oo maxay ahayd oo dhib leh maba ahanba waa adiga 10 daqiiqo keliya hal mara gacanta marsiinay hal marna waa raacsiinay wayba isku dhamaatay sheekada marka miraayadihii wixii hal mar lasoo raacsiinaa iyo dirbiga cadaay waa ujeediin wixii dhan nadiif qurux ayuu noqday dirbigana yani intaas oo yani la isticmaala amba 2 sano ama 3 sano yaa isdhahaaya sidiisoo nadiif u yahay dhagaxa weysada waxaa dhan sidooday nadiif u yihiin marka kulli hal mara gacanta marsiina hal maraa soo raacsiinay wayba isku dhamaato wax dhib le meesha ma bayaalabo kadibna waxaa la dhaqayaa ilmaha caagtooda ay ku ritaan cadayada kulli jeermiskan ka dilaa 5 maalin iskuul loo kala cararaayo lagama gaaro shaqo iskuula loo kala cararaayo laakiin hal maalin waa inaa gacanta u marsiisa haddii caag ku leeyihiin qasab waa inaa gacanta u marsiisaa jeermiska ka dishaa aad ogaataa waxyaabaha oo adiga dhan oo yani oo aad shaqadaada ay ka bilaabatay ku dhamaataa waxay tahay ilmahaas oo ilaahay kusii mas-uuliyadooda ku saaran tahay sababtoo ilmaha waa saqiiro waxba ma ogo haddaa anaga nadiifinin aad daryeelin wallahi isma daryeeli karaan waxba ma ogo aqli ma lahan marka insha allah meel walba inaan ka kontarooshiina aan aad iyo aad u jeclaan lahaa aan ugu farxi lahaa sababtoo ayaga waxay ogyihiin male maanta cunugaaga jeermis asagoo si kale waa laga fiican yahay in aan ogaano ilmaheena aan isku dayanaa insha allahu tacaala cadiyadoodii iyo waxoodii hal mar gacanta ka marsiina waa ka jakima qofku ka dhamaaday qofku u fiican yahay weelashoodu waa nadiif hal yani 5 maalmood waxaan dareemaa anigana in uu wax iga qaldaneen
inuu wax kaa qaldaneen haddaad fadhiisato xataa waxaad dareemaysaa inaa waxyar alxamdulilah aanasatay. laakiin adoo fadhiyo amba adoo sheeko ku jiro kabaran haddii ay waxaaga murdad kuu qasan yahay ilmahaaga waxooda kuu hagaagsaneen. kanna waa kii aniga aabahood laba baartaa la kala yahay, waa la kala baxay, mid ayagaa leh midna anagaa leh. kanna waa ayagaa leh marka aniga waxaa leh xaajiga cadiyadeena iyo caageena ku ridanaa, kaasna ayagaa leh ma la isku imaanayo. wixeegi iyo aabaa qaatay iyo maama qaatay iyo aabaa xag weeye ma jirto, ayaga waxooda anaga waxeena. marka saasaa kulli usoo wada nadiifiyaa, sidaasaa kulligood ugu soo ridaa caagooda. maasha allah sidaasaa ku bagaba hooshe. waa taasaa waa subaxnimo musqushi mugdigaasay tahay, nalkaa loo shidaa. qofkii soo kaco carafteeda saas ugu soo kacaa, saxankii waa nadiif, shaambooyinkii caagagtoodii murug dhan ma ku heeso. waa ka saxankii saasoo dhallo u yahay nadiif asaga dhan. waa kaasaa labada shumca meesha u saaran. xilliga qaboobada ee aada iyo aada indhaha ugu fiican yihiin shumacyada shukumaankoodii. markii la weyse qaata lagu tirtiranaa, markii la weyse qaata waa qasab inay tirtirtaano. maxay ahayd waa taas saasaa kusoo begnay musqusheeni. kadib hoosa usoo degta waa subaxnimo, jikadii saasay nadiif u tahay. xalaa wixii dhan nadiifiyey waa idin sheegan, habeenkii aan nadiifsadaa. saasay nadiif u tahay jikadii wixii oo dhan. nalkii hadeertaan u shidaa, saasaaba nalka lagu shidaa, waa mugdi subaxnimo waaye. baasheedi weli waa isaartaa ujeedin asxaabe. meeshaan 5 litir biyaa la rabaa in la dhameeyo maalintii. go-aanaa lasoo gaaray biyaha caafimaad badan laga akhristay. 5 litir 5 litir aa la rabaa in la dhameeyo maalintii. ilaahay hanoo fududeeyo insha allah. biyaha isku ogaada, hore u socda walaalahaygaa jeclahay. biyaha jidhka ayay qurxiyaan. maxaad ku qurux badnaatay biyo? cid aaminaysa ma, laakiin biyaha waa lagu qurux badnaadaa. first one noloshaada waa biyo. geedka banaanka ku yaal dhirta ee markuu qalalo biyaha hadaa ku shubta quruxuu noqonaa. ka waana qaada taas, cilmigaada gadaal u raac. meeshan waxaa ku shuba caano yar, caanaha aana faadka lahayn. mashaari ayaa rabaa ilmaha inaan u sameeyo. mashaari aad iyo aad u macaan. mashaaridan dadkii sacaateena waa isticmaali karaan. qofkii sacaateena insha allah cunta sacaateena waa idiin soo gelinaa, oo dadka cuntada Herbalife haysanin aan usoo gelinaa cunta la isku caatay insha allah. meeshan waa mashaari, mashaarida caana ayaa ku daray. kadib waa isku walaaqa, sokor yar aa ku dara. waxaa ku daraa cusbo yar, astaghfirullah, sokor dhan ku daraay, cusbo yar aa ku daraa. kadibna ayadaa bislaadad waa arki doontiisee kusoo bixi doonto. kadib maxay ahaydoo waa faraarinaysaa sayna ee kaaga kuuskuus kaaga noqonin mashaaridan labada baby oo yaryar aan u sameynaa. mashaarida aaday subaxda ilmaha ugu fiican tahay, aqli badan ay ka qaataan ilmaha mashaarida. quraacda sidoo kale caafimaad fiican ku jiro. mashaarida ha la iskugu dadaalo. qofka weyn oo iscaateenayo oo caafimaadkiisa raadinayo, qurux lifestyle-kiisa inuu saxa rabo, quraac caafimaad waa inuu cunaa. caruurta sidoo kale mashaarida markaad siisid cunuga quruxdiisa way soo baxaysaa. marka waa kaasa walaalayaal, waa subaxnimo inta jifaana quraacdooda waxooda loo diyaarinaa. hadday soo kacaan quraacdooda si ay ku cunaano, ayagaaba kaasoo kicinaya. laakiin markay howl ii taalo anaaba subaxnimo iyo kasoo kaco. marka insha allah markii loo nadiifiyo kareemkooda iyo waxooda loo mariyo quraacdooda lagu taabanaa. marka mashaarida la iskugu dadaalo, ilmaha lagu dadaalo aada iyo aad ay u fiican tahay. ilmaha 6 bilood 7 bilood 8 bilood jira way cuni karaan. cunuga yariiska 4 bilood jira waxaa loogu talagalay cunto in lagu bilaabo. marka insha allah sidaan u kar dabka badan ha ku karinin, dabkeeda normaal ha ahaado, yacni dhexdhexaad. kadib dabkiyaa ka damiyay, waxay saarneedba ma dhamo 4 daqiiqo. kadib mooskan yariiska ugu sharxaa geesaha, mooskan yariiska u jarjaraa. waa moos oo keliya lagu siinaa iyo malab. wax sokor la dhaho kuma daran, cusbo yar oo been ah ku daray aana badnayn insha allah. mooskiyaa saas usoo jarjaraneynaa. mooska sidaas markaa usoo jarjaro aa kusoo shubaa. waatana mashaaridi way adag tahay. mashaarida runaanti bibiya saaid ma ka dhigin, mana jecel inaa ka dhigsaan. inaa u adkeeyaa jeclahay. dooqaaga adiga waa haddaa jeceshaa inaa adkeysa, haddaa jeceshaa inaa oo bibiya ka dhigatid. markii ilmaha la adkeeya inay jecelyihiin aa ogaaday. qofka weyn xataa markii biyaha laga dhigi kaadiya u dhamaanaysa ila tahay wixii dhan. laakiin markay adagtaa cunto oo dhammaystiranay kusoo baxeysaa aan inaba caadi ahayn. sidaasaa mashaaridina mooska ugu soo wareejinayaa. cunuga markuu arkaayo soo niyadu u dhisto iyo qofka weyn. aniga xataa in badan sidaan ayaa u cunaa.
fruit ay nooc waxa rabaa ku darsadaa fruit ay nooc marka laakiin mooska aad iyo aad ugu macaan badan tahay si inaba caadi ahayn ku soo baxaysa mooska markaad ku darsatid kadib waxa ku darayaa malab yara ku darayaa malabkaas yara ku soo miiraa insha Allah malabkaas marka ku daro waxaan ku darayaa hadeertaan sabiib yar aan soo dhaqay waa ugu sharxaa sabiibka aaday u cunaan sabiibkan ilmaha maskaxda ka dhisaa asagana aad u fiican yahay asoo caafimaad laga hadlaya jiro sabiibka yar ku daraa kadib waxaan ku daraa saliid macsaro ma taqaaneen saliid oo sisinta qofba si uu yaqaan ma oo saliid sisin am saliid macsaro waa saliid macsaro yar mashaaridaas ugu daraa waa ilmaha cunaayo waa xilli qaboob lafee u adkeenee saliid macsaro si yar ugu soo bilbilaas wallahi macaanta ee leedahay yaabisa marka saliid macsarada iyo sabiibka iyo mooska iyo malabka iyo mashaarida la isku daro caraf iyo macaan ee leedahay aad iyo aad u fiican maasha Allah ka faa'iideyso waa walaalahayga aad iyo aad waa cunto ilmaha nafaqo u haraadinin cunuga muxuu ku caylaa cunugaaga wax oo lafiis u adkeenay raadi cunug caylo fuush wax ay ku faa'iideynayso mala caylka waa laga orday sanadkan caafimaad ba hadoo ku haysta caylaha u raadin tana best tan ku dadaal mashaaridan ku dadaal hore u socda ilmaha cayilka yaa la tuugin cunuga hadoo iskiisu cayilo laguma haysto laakiin adiga ha cayil siinin insha Allah cuntadana ay nooc cunuga ugu soo dhig indha sarcaadi wax u qurqurxi cunug inuu cunaa laga yaabaa baayaal badan ilmaha aad ugu dhib qaba ayaa jiro oo waxba ka cuneenin oo qurqurxi qaando saan ugu yeel afka u gilgili marka insha Allah waad guuleysan doontiin ilmahana Ilaahay cantuuftooda ha u maceeyo waxa arkaysa cunug aan wax u cunno iska buuran cantuuftiisa Ilaahay u maceeyay marka kan amaanta dhan wax siinaysan waxa laga yaabaa inuu nacayilin marka haduu wax ka diida adeeg ha isku murjinin sidaad ugu basari karto ugu basari qaando u soo qaad kursi u soo qaad nin weyn oo mas'uul ka dhig afka u gilgili maamo yaa birima galaay dheh yaa sugunta dheh cunuga markaas hamiyo yala aniga birimo kule insha Allah saas isku ognahay meeshaan inta cashadii waaye marmar ilmaha cashada in loo bedelo ayaa fiican maama casho banaanka rabnaa lagu leeyahay habeenkii weekendiga waxay dhaheen anaka waxaa rabnaa pizza oo waliba dalawaad tan guriga xataa ma la rabaa lahay insha Allah pizzahana loo soo qaaday anaga nafteena is casuumeyno marka ma sha Allah walaalahayga habeenka xad waxay dhan anaga doorsho ma rabna laakiin waa tan muniira cashadeedii mashaaridaas fruitka saalee ani pizza waxaas ku jiray qof waxa diet qarash ku socdo diet ku jirto marka waxay dhaheen anaga doorsho waxaas ma rabna caaba hala baasha la dhahay caloosha hal buuxsada hal meel lagu wada duceysto sidaan ay fruitkan miiska loogu saaray qofba dooqiisa ayuu cunayaa tufaax cambo liin beer moos ما شاء الله سنانيت ilmaha jirka in laga qaboojiyo ayaa roon marka ilmaha u badisid fruitka jirka ay ka qaboobayaan marka caawa cashadii waa taasa ilmihii dalbadeen baashaal ku dalbadeen walaalaha oo la wadaaga islahay marka miiskan aniga bac ayaa ii saarneed wiligay alee ii saarneed muddo 3 sano ku dhawaad bacdaaniti laakiin waxa yeela markay marti imaato miiskeyga waa ka qaadaa bacda laakiin ilmahayga bacda u dhigaa sababtoo ilmaha wax ay ku qasaayaan wax ay ku dheelayaan marka ilmaha waxay u baahan yihiin in oo ayagana biri way kugu tababaranayaan marka kuraastana mara iigu jirto seen iiga wasaqaynin miiskina bacaan ku firaashay birita dad waaweyn oo maasha Allah ku imaanay waxaaga waa nadiifsan waa kala toosisane marka maasha Allah bacda saasa ugu saaray markii nalka la diminaysan ku soo baxay qurux ما شاء الله waxaan jeclaa in kale sidaas oo kale midaas mid la mid farxadaas inaa ku wada qaybsan doontiino markuu cunuga bago ducadiisii iyo wixii soo akhrisan lahaa waayo wax walbaad ka ogaanaysaa cunuga marka hal meel ku wada cashaysiino jadwal walbana waad ka saxaysaa cunugaas insha Allah ilaahana la garab gala ilmaha ru'aanta waa shaqo aad iyo aad u culus laakiin ilaahayna siiyaa noo fududeeyo aniga cashadeedu waa taasa hadaan cashaas cunin energy ba ilmo ma u haayo pizza hada beer ka saarto caloosh la isi weynaanayso energy cunugaas aan kula hadlamay waa neeftuura ilaan cunto aan aniga iga tan weynaa cunay cunto oo maxaan cunay ilmaha sports sameeyaan way baxaan sports sameeyaan waxay ciyaaraan maxay aheedo dabaale ciyaaraan laakiin anaka maxaa ciyaarnaa hooyo hadaan nahnay
may anaga waxaa ciyaarna mal guriga iska fadhnaa nalkaas saas u fiirinayna maanta dhan maxaa guriga ka qaldana ku jirayna laakiin ilmihii dawaal banooni ku maqan yihiin sports sameeyaan yoga sameeyaan wax walba sameeyaan laakiin anaga hooyadan waxba ma sameeyno laakiin ilmaha wixii sameeyo nafaqadooda ha iska cunaan ayaga laakiin may anigu ma jiro mashaarideeda iyo fruitkeyga fuqdeed aniga dhan khafiif ayaa meesha isku noqonaya markaas anagoona sidaas ayaa isku ognahay hadda hooyanahna ilmahayna aan korsano laakiin annagana cuntada caafimaadka le iskugu dadaalno ebel kor nimankii ilmaha ayaa qarash inoogu bixi jiray tookada waa anaga qarash isku bixinaa cuntooyinka la isku caatay aad dalbanaa oo jirkeena aan ku dadaalnaa maasha allah abaayaal badan ay la soo xiriireen oo aad iyo aad cuntada u isticmaal guul badan ka keenay marka pizza yar dhexda ayaa usoo dhignay haddii lacal saxamakooda ay dhameeyaan si tartiib ay ugu darsadaan in us istaagin tartiib ay miiskooda cuntada ku bagaan insha Allah waxaa idin rajeynayaa walaalahay adduunka daafiis meel walba aad ku nooshiin farxad iyo caafimaad ku wada qaata gurigiina iyo miisaskiina iyo meel walba adduunka jeceshiin farxad ku wada qaata waxaa idin leeyahay fiidiyooga iyo fiidiyo kale ilaa kulmayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh